Asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal haddii ay tahay markii kugu horeysay waxaan ku leeyahay soo dhawow oo channelka subscribe inoo saar haddii ay tahay markii kale mar labaad iyo mar saddexaad aad soo booqato channelkani waxaan ku leeyahay meesha waa meeshaadii mar kale adigana soo dhawow cashiro hore inoogu socday ayaa jiray oo ku saabsanaa parts of speech kuwaas oo taxana inoo ahaa balse haddii ay dhibaato tahay mise cillad tahay inaan cashiro soo dhexgeliyo oo aan taxanahaasi cashiro kale soo dhexgelgeliyo comment waxaad igu qori kartaa waxaad dhihi kartaa ustaad cashiradii hore inoo wad taxana ahaan noogu wad haddii aad rabtaan ama marka qaarna cashiro kale oo waxyaabo badan aad ka fahantaan inaan soo dhexgeliyana waxaad dhihi kartaa waa okay oo sida haddaa ku socoto waa ku socon kartaa waxaan ku leeyahay soo dhawow cashirkeenii number 7 parts of speech 8 ay ahayd marka number 6 aa joognay cashirka marka maanta waxaan ku barnaynaa conjunction oo numberkii 7 ah conjunction maxaa waaye marka it joins words area ayaa isku daraysaa phrase or sentence okay phrase maxaa waaye marka phrase waa ereya aanan lahayn subject iyo verb intaba waa erey aan keligii meel taagnaan karin oo wuxuu u baahan yahay subject iyo verb maxaa la mid ah marka waxaa la mid ah nounka ama pronounka ama adjectiveka ama adverbka tusaale ereyga sida joy camal joy maxaa waaye joy haddii aan isku dayno waxaa waaye waa farxad okay farxad kaligeed meel ma taagnaan karto waa in ay jumladda raacsanataa qofka waa faraxsan yahay muxuu ku faraxsan yahay yaa waaye qofka faraxsan su'aalo badan ayaa ka imaanaya so waa phrase or sentence jumlad okay intaan isla fahana rajaynaa so marka waxaa waaye is a joining word waa erey kala dhammaystiraya conjunctionka jumladda way u baahan tahay la'aanteedna ma socon karto okay marka meeqo u kala baxaa saddex u kala baxaa saddexda waa macnayn doonaa macno weliba aad iyo aad u ballaaran aan ku samayn doonaa iyadoo weliba saa aragtaan cashiro cusub maanta oo gadaal aan ka qoray aanan dib ugu macneeyey ay noogu dhex jiraan bartaani waa sabuuradeena aan wax ku baranayno marka haylaawin inaad si fiican ula socotid okay haddii qalin book aad soo qaadato aad qoratana waa ku anfacaysa way ku fiican tahay marka waxaan ka bilaabaynaa coordinating conjunction waa maxay coordinating conjunction meesha maxaa noogu qoran joins elements of word or elements of words with equal and grammar something like this so haddii aad dib ugu noqono meertan waxaa waaye it joins elements of equal grammatical rank macnaha waxay isku daraysaa mise ay koobaysaa elements xarfooyin ama words of equal grammatical rank kuwaas oo grammatically equal ah level ahaan okay maxaa ka mid ah marka ereyada isticmaalayna maxaa waaye kuwa oo joininka ah kow and jumlooyinka ugu badan oo u muhiim but jumlooyinka sidoo kale waa u muhiim or sidoo kale isbarbardhig so sidoo kale idan waa la isticmaalaa yet weli okay so it joins equal parts like maxaa ka mid ah marka I like tea waxaan jeclahay shaah and coffee so macnaheedu waxaa isbarbardhigaysaa shaah iyo coffee I like tea waxaan jeclahay coffee and tea waxaan jeclahay shaah sidoo kalena coffee maxaa la mid ah marka she is tired aad ayay u daalan tahay but you see happy way daalan tahay laakiin way faraxsan tahay okay taas waxaa marka coordinating conjunction sidoo kale waxay isticmaali kartaa so I'm going to the market so what will I buy for you like waxaan u socdaa suuqa kadibna maxaan kuu soo gadaa kadib maxaa u baahan tahay camal waa okay so sidoo kale yet I went to the market yet I have not bought what I wanted suuqa ayaan aaday balse wixii aan u baahnaa weli ma soo gadan okay so sidoo kale waxaa loo isticmaalaa coordinating conjunction ayaa lagu isticmaalaa okay subordinating marka subordinatingka muxuu yahay subordinating used to show cause and effect waa ereya kuwaas oo ku tusinaya cause waxyaabaha sababay and effect waxyaabaha effectiyada ah okay between inta u dhaxaysa the clause within a sentence okay clause maxaa marka clause marka inta in kugu macneeyay a group of word a clause waxa waaye a group of word that contains both subject and a verb waa ereya kuwaas oo leh subject iyo verb waa ereya macno ku fadhiya so subordinating conjunction marka ayaan isku wareerayaa maxaa loo isticmaalaa clause-kaasi maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa used to show waa in ay ku tusiyaan the cause sabab okay the cause sabab and effect waxyaabaha ka soo baxay sababta waxaas keenay waxyaabihii resultiga ka soo baxay between inta u dhaxaysa
the clause waa soo macneynay waa group of words within a sentence ereyadaasi waxyaabii ay sababeen ayuu soo bandhigayaa okay maxaa ka mid ah marka wuxuu leeyahay marka independent clause iyo dependent clause kala leeyahay independent clause means waa clause kaligiis aanan joogsan karin dependent clause-na waa clause kaligiis meel taagnaan karo I think أنا فتاة رجانا ولا آدمية لكن عشر كيا سوق بقولنا وإن كرال قلنا إنتاس okay so subordinate conjunction معاه مركا because although if when while since join main and dependent clause so intasi ayaa waxa isku diraysaa marka dependent clause so clause na waa idin macnaysaa ina faanteen arjaynaya okay example marka I stayed home waxaan joogay guriga because it rained sababtoo ah roob ayaa daay so sabab ayaa meesha keenaysa waa faanteen weena meesha maxaa ku qornaa cause macnaheedu maxaa waaye sababta maxaa sababay waxaan okay haddii aan idin soo koobo sidoo kale correlative conjunction maxaa waaye pair of conjunctions this is pair of conjunctions that works together join grammatical equal element in a sentence such as two nouns two verbs and two independent clause okay waa pairs of conjunction waa conjunction badan oo la isku daray sida coordinative iyo subordinative iyo correlative isku daray kuwaas oo wada shaqayn ka wada dhaxayso sida in ay isticmaalaan laba noun laba verb iyo laba independent clause maxaa dhahanay clause kaligiis aan taagnaan karin waa independent waa clause kaligiis taagnaan karo dependent wuxuu ku tiirsan yahay jumlada inteeda kale oo kaligii meel ma taagnaan karo waa inuu macno saxan la imaadaa okay pairs like either macnaha laba isu raaceen either or sidoo kale neither nor sidoo kale both and intaas la isticmaali karaa maxaa marka example ahaan marka waxaa waaye either you study or you fail waa inaad wax barataa or waad dhacaysaa either you study waa inaad wax barataa or you fail ama waad dhacaysaa neither you sleep nor you get sick haddaad saahan weyso waad xanuunsanaysaa or ma xanuunsanayso neither waa cagsi waa positive negative-kana waxaa waaye either okay marka halkaas waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay coordinating subordinating iyo correlative qaabka loo isticmaalo example marka I want fruit or cake waxaan rabaa fruit ama cake ama doorsho so meeshaan or a isticmaal so sidoo kale or intay noogu jirtaa I want fruit either I want fruit or cake ama waxaan rabaa so labadaba isticmaal kartaa so because it's too late we left because it was too late aad ay u ahayd xilli dambe so we left sadarteed waxaa waaye waa tagnay waa maanaa xilli dambe ahayd waana sababta aan u baxnay qofka wuxuu ku yidhi maxaa u baxdeen xalay xilligaas waxaad dhahaysaa because it was too late so that we left marka waa tagnay annaga okay marka inkastoo cashirkan uu yahay cashir xoogaha isku dhex aan fahmi doonin oo xoogaa ku adkaan doono laakiin waxaan rajaynayaa inaad cashirkan dib ugu ceshtaan in badan qalin book aad qaadatid marka hore aad fahantid clause maxaa waaye dependent clause maxaa waaye independent maxaa waaye conjunctions maxaa waaye correlative maxaa waaye subordinative maxaa waaye coordinating maxaa waaye so intaas hadaa fahanto jumlada iyo qaabka loo isticmaalo waxyaabaha dhan waa fahmaysaa tusaalooyinkan haddaad baratid ood ku celceliso adaa tusaalooyin aad samayso runtii maasha allah qof waxaa ku soo baxaysaa fahmay conjunctionka waa waxa ugu muhiimsan jumlooyinka loo isticmaalo la-aantiisna badana inta badan waa isticmaalnaa laakiin ma fahano sababta u isticmaalna iyo meesha loogu isticmaalo so intaas waa talo exercise marka exercise la-aantiisa waxba lama fahmaayo qofka hadduu exercise ka fahmi waayo wax ma fahmin dib baa loogu soo celinaa hadduu fahmayna maasha allah okay join waxaa isku dartaa marka he is hungry wuu baahan yahay he has no food cunana ma haysto adigoo isticmaalaya so iyo because waxaad isticmaalaysaa so iyo because waxaad isku daraysaa marka he is hungry dash then he has no food waa baahan yahay cunana ma haysto waxaad isku daraysaa marka labadaasi ereyood labadaasi jumladood adigoo isticmaalaya so iyo because taas waa su-aasha koowaad choose dooro marka maxaad dooranaysaa dash you study waad baranaysaa dash you will pass
meeshan laba erey ayaa ka maqan ma either or aa isticmaalaysaa mise neither nor ayaa isticmaalaysaa jumladu waxay ku leedahay inta waxaa ka maqan you study waad baranaysaa waadna gudbaysaa oo waad guulaysanaysaa ma either or aa isticmaalaynaa mise neither nor aa isticmaalaynaa intaasi waa su'aalaha aniga aan idinkugu talagalay ee cashirka aan kusoo xirayo muuqaalkiisa xiga haddii ilaahay nabad nagu gaarsiiyo waxaa idin leeyahay muuqaalkiisa ilaahay nabad nagu gaarsiiyo insha allah intaan mid lamid ah kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu